ayaa nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinka jumcada waxaa ku jira waqti ama saacad uusan waafaqaynin muslim taagan oo tukanaya allana khayr weydiisanaya ilaa ilaahay waasinay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيجي أودين كسر لابتي يا موقال كلا عصب فضلا هديات عصب تهاي سبسكرايب صار هديات هوري لجوكتنا سودو لايك تناهي نجاي لوبين وحندين وذا روتين يرو قلبات صادر كيسان با ugu horeyn waxaan ka bilaabay kijadii ayaan soo galay deetana si kaliya laban ku soo galagaajiyay xitaa xaqa hoos range baan soo mariyay ranjiga yare sibiriga darkiisaan baan soo mariyay qoyan yahay wali deetana si fiican baan soo kala hagaajiyay waan soo maray gidaarada soo muudsaday mololololo kijadii baan soo wada kala hagaajiyay saadarkiisaan dhagdhag baan ka soo dhigay markii kijadu nadiif tahay wallahi aad baan u farxaa shaqada kale waxaan ku orin nafis way ku noqonaysaa guriga markaad ka shaqaynayso jikadiyo ku nadiifa qalbigaad ka farxaysaa laakiin markay jikadu is dhex taala ama hay si kala tahay gabigaaga dismoral baad qaadaysaa xitaa waxaad saranaysaa wax qabanba maanta faraha ka qaad shaqadan ma fahanteen ugu horeyn anu kijada in la hagaajiyaan jecelahay oo la qurxiyo oo nadiif ay ku noqoto markaad soo dhex fadhiisato jikada nadiifa aad dhex fadhiisato oo udgoonka aad ka yaabayso ma fahanteen markaan soo hagaajiyay uunsi baan ku soo shitay xitaa boog waxaan ku dhagdhag baan ka soo dhigay kijadii markaan xagga kaga nimaadno hadana qalab bay ahayd keeg yaroo meesha yaalayo gabadh lahayd ayaan maxay heeday ka gaarsiinayay meelaha waxay ahayd saacadu 4 iyo barkii kijadii markaan soo hagaajiyay baan keeg yar hadana ku tuuray xabada keegan soo hagaajinay isagana dhagdhag baan ka soo dhigayaa waan soo habaynayaa keeg wuxuu haban malaynayaa 40 bax inuu yahay baan u malaynayaa waay wax magacana lagu qorin laakiin 40 bax baan u maleeyay waa light iyo cadaan keegan soo simaya keega dad u baahan insha Allah waan soo gelinayaa commentiga ku reeba wixii codsiga commentiga ku reeba already waxaan hadal idinku daalinayna keega markaan soo habeeyo hawshu saasi galabnimada u soconaysaa imika keega markaan soo yara sharaxo talaagadan ugu ridayaa fiidkii soo doonanayaan haddii ilaahay dhahdo marka waxbayaan hadal idinku daalinayna keegiisaan soo dhammaystiray hadana sharaxaadiisa rid dusha soo saaray ya buluug iyo cadaan weeyaan keegu waa ilmo inana baan u malaynayaa ما شاء الله وحنا soo barbaarkii dalkiisa dadkiisa waanfaca ilaahay ka dhigo kula yar baan hoosta soo soo galiyay marka kula yar baan soo soo mariyay ku soo taxay marka waxaan ku leeyahay imika kijadiyo in nadiifa hawshii kala hadana gurigan doonayaan galo cashadii iyo xaasadana sugaysa faanoole farikama qodma ayaa hore loo yiri ma fahanteen marka imika waxba keega waan ku sii rabtayba waxaan isiri asxaabtaada kula siira daawata keega inta jecelna waxaan ku leeyahay insha Allah waan soo gelinayaa ilaahay raado aan sameynaya bilow iyo dhamaadba ka baahantiin waan soo gelinayaa anyway waxaan soo raaciyay cupcake lixabo cupcake soo raaciyay intaas isku raacinaya ma fahantiin inta markaan halka kaga imaado waxaan galay hadana qol halkan oo fadhigiya ayaan galay furdisti baan soo qaaday tuwaal baan soo mayray isagoo xumbadii leh ayaan deetana ku soo masaxay fadhigii on diskrey markii hore fadhiga on diskrey guriga soo xaaray kadibna waxaan ku sameynayaa waan ku xuqayaa wallahi baashasi aad bay u nadiifisaa fadhiga intii garanaysa waa garanaysa intaan garanayn baan uga faa'iideynayaa furiyaro saa u kuusan intaad soo qaadato waa ina saa ugu xoqdaa maasha Allah waxaan ku leeyahay fadhigu saas kuugu dhalaali doonaa insha Allah haddana waan soo qaaday halkan baan maxay muraayadaha yara masmasaxayaa muraayada daaqada ayaan yara masmasaxayaa dawaka halkaas gabadhi gab tahay cycle badina oo cararaysa ma fahanteen si tahay kadib adigu halkan hadana fadhiga markaan soo kala masaxay hagaajintu ii qalalay hadana bifeega ayaan soo yara masaxayaa
alaabtan ku jirtaan ka yara dhasgareeyay dhagdhag baan kasoo dhigay fadhigiisa aad arkaysaan macaa barkimooyinkii baan soo yara masaxay dhagdhag dawaka sidaasana usoo habeeyey waxaan ku leeyahay gurigu nadiif markuu yahay maasha Allah tabaarakallah qalbigaaga iyo qulubtaada ayaa nasanaysa oo degaysa habi noqonaysa laakiin gurigu markuu isdhex yaalo ama wax yar ka qaldan yihiin anu waan diiqadooda har la midka ah haysa soo muujiso aad baan u diiqadooda already gurigii waxaan ku carfisadiisa inuu soo dhiibo uun siban ku soo shiday ya dhagdhag baan kasoo siiday maasha Allah tabaarakallah ilaahay xoogaa noo daayo ilaahay taan caafimaad hayna caafimaadka ha u siiyay caafimaad ha siintii haysatana ilaahay u siiyadaan leeyahay ma fahanteen sidaasan dee halkan haddaan isla soo gaadhnay waad mahadsantihiin subscribe saradadiga cusub tahay haddii ka like ta